Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble madaxweynayaasha dowlad goboleedyada gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wakiilada beesha caalamka ayaa shir waxa uu ugu furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaana diiradda lagu saarayaa hirgelinta heshiiskii ka soo baxay shirka madasha wadatashiga qaran ee dhowaan lagu saxiixay magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya afayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimow ayaa warbaahinta ka warbixiyay kulankani shirka maanta uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa ka qayb galay madaxdii shirka ka qayb gashay ay ugu horeeyaan madaxweynayaashii dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir iyo sidoo kale wakiilada beesha caalamka oo dhan Soomaaliya jooga runtii waxaa aad looga hadlay marka ugu horeysa ay beesha caalamku ay hambaliyeysay heshiiskii la gaaray iyo guud ahaan natiijadii ka soo baxday shirkii khamiistii dhamaaday ee madaxdu halkan ay ku lahaayeen muddadii toddobaadkii la soo dhaafay waxaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu sheegay inay hadda diyaar u yihiin iyagoo muwaafaqo inay bilaabayaan hirgelintii heshiiska isla markaana ay kulamo joogto ay yeelan doonaan ayna ka go'an tahay sidii dalka doorasho dhaqsiya loogu qabsan lahaa waxa uu ka codsaday dhinacooda caalamka in ay garab istaag sameeyaan oo dhinaca dhaqaale iyo farsamo dhinac kastaba ay garab ka siiyaan sidii heshiiskaas loo hirgelin lahaa wakiilada beesha caalamka iyo madaxdii kale halka ka hadashayba madaxduna waxay ayideen oo ay ka hadleen sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada oo dhan hadalkii ra'iisul wasaaraha iyagoo sheegay in ay laga maarmaan tahay taageerada beesha caalamka wakiiladii beesha caalamka ee hadlay oo ugu horeeyay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Ambassador Iswaan waxay ballan qaadeen in ay gacan ka geysan doonaan geedi socodka waxa uu sheegay in horeyba ay u qorsheeyeen in qiyaastii ilaa 15 milyan oo dollar ay ugu talagaleen lacagta doorashada laakiin half kamida ama qayb kamida ilaa 7 milyan xitaa horey ay diyaar u ahayd haddana la doonayo in hawshaas la bilaabo marka way sii socon doonaan dhammaantoodna waxaa la isku raacay in doorashadii la dardar geliyo oo ay ugu horeyso qodobadii ugu horeeyay ee la doonayay in la qaato ay ka mid ahayd guddiyadii la magacaabayay dhamaystirkoodii oo ra'iisul wasaaruhu muddo gaaban maalmo gudahood uu ku xalinayo magaalada Muqdisho waxaa ka soconaya kulamo looga arinsanayo arrimaha doorashooyinka dalka ka gadaal heshiiskii laga gaaray murankii ka taagnaa arrimaha doorashooyinka qaranka Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani Hirshabelle TV magaalada Jowhar